igu horeeyay sheegeen xildhibaanadii igu horeeyay maanta waa maalin weyn waa maanta maalin taariikhi maanta waxay geli doontaa taariikhda xildhibaankii ogolaado inay magaaladani tahay magaalada uma Soomaaliyeed ay leedahay dad gaar ah degan yihiin in la iska wada arkanaya sax tahay ayna u codeeyaan in dadka shacabka 3 milyan ee Soomaaliyeed ka kooban inay helaan xuquuqdooda u codeeyaan waa in la arkaa kan diidanna waa in la arkaa shacabka Muqdisho ee arkaan shacabka magaalada ku nool waa in la arkaa aniga waqtiga ana iskale هذا بدو ما سنت وعاد يشك ويا مدن بدو ما سنت هاي أنا waxaan sheegay waa fikirkeyga waana xaqiiq shacabka magaalada Muqdisho oo hadlaya dadka aan matala u hadlaya wixii ay qabaan aan ku hadlaya amba laga xumaado amba lagu farxo waxaan ka hadlay waa intaas maamooyinaas dhageysan waa ixtiraama انت كدب وعوصل نقرأ مدرات قبل كبنادر مدرات قبل كبنادر وعمد متقنا حق لي انت كان مقالة مقدشة دقن ترى لربنا وحيتاي إن لقبض يوم مدو ترى وحاول بعنا إن أفر يتفهم لقد يوم ومتقنا هو يران وحاول مصر يدونا برشة دقن مقالة مقدشة tiradooda inta ay laagtaa waxa kale oo sakan gareena xildhibaan salaad xildhibaanadii iga horeeyay inaysan u baahnayn in dastuurka loo furo saacadan madalaadaasna shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa baarlamaanka golaha shacabku matala in maqaamkan gobolka Banaadir amba matalaadan gobolka Banaadir aqalka sare inay noqoto mid la wada ansixiyo aan loo kala kicin ilaa caawa lagu qaadato hadii la rabo laga doodo go'aan laga gaaro taas ma taqaan waa mid aan soo jeedinayo aan ma taqaan codkayga aan ku beerinayo hadii hadalkayga si qalad loo fahmay waxaan ka bixinayaa raaligelin laakiin aniga waxaan ku taaganahay shacabka Soomaaliyeed waana sugayaan shacabka gobolka Banaadir waana sugayaan mana aqbali mayno doorashada dalkan kale inay ka dhacdana aqbali mayno ayadoona xaq gobolka Banaadir leeyahay وانا ما سنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته